soo dhawaada kusoo dhawaada Rushaak Media Network. Asxaabay waxaan arkayay wareysi Cabdi Jaliil oo ka qaadi rabay gabar Soomaaliyeed oo runtii aqoon durugsan u leh oo aad maaragtay muxuu ahaay u baratay cilmiga teknolojiyadda kana shaqeysay Meta, Facebook, isna maaragtay muxuu ahaay Snapchat iyo maaragtay muxuu ahaay shirkado kale oo waaweyn oo dhanka teknolojiyadda Silicon Valley na fadhisay. Silicon Valley waa halka lagu kala gato fikradaha وانا technology hub واي وحرون جناحسي حرون معرفة محوها جناحسي إيه حرون تكنولوجيات واي وانا ماشى معرفة تكنولوجيا ده دون كودن لك حكومة ولا جم معموله مركا دتكي experts كهايو لنا يسوي تجان جواد إنه عاصم مركا خلك application يسميه حتى 95 معرفة محوها مليون دولار لو جاتي Soomaaliya أنا ربت إني أخونتي uga faa'iideyso oo runtii waayagnimada ay leedahay wax badan ay ku soo kordhiso laga faa'iideysto aan nasiib darro waxa shirkado waaweyn ayagoo maaragtay isticmaalayo wax ma garato waxay ku kiciyeen Cabdi Jaliil warkiisa waxa uu dhageystay dadka Soomaaliyeed waxa u muuqda kaliya Cabdi Jaliil wareysiga wuxuu u joojiyay gabadha jirkeeda ayaa la arkayay oo way qaawneed wax ka jira malaha waay been waay waxaas yani idin sheegay walaalayaal dadka Soomaaliyeed waxay tagaan iskuulo jaamacado gabdhaha dhigayo ay madax u qaaban yihiin naasahooda banaanka yaalo kastuuma xiran ayay tagaan gabdhihii qurbihii tagay ayaa suwaal xirto oo iyo fanaanad ku dhigan ku socdo qaarkood jirkoodii banaan yahay qoorta iyo xabadka wax ka jira malaha marka sheekadan yaan idin sheegin gabadha jirkeeda iyo dharkeeda lagu mashquulin ee waxaa ka dambeeya arrintan shirkado waaweyn oo dalka ka jiro oo diidan aqoonta gabadhan ay soo gudbinayeen iyo sida looga faa'iideysanayo iyo indhaha ay u fureen dadka Soomaaliyeed iyo cilmiga ay xambaarsan tahay iyo waayo aragnimada ay la wadaagayso iyo sida ay u rabto in teknolojiyadda Soomaaliya ay horumarto oo meel sare u gaarto marka waxa imaanaya wareysida noocan haday soo bataan oo gabadhu aqoonteeda sharaxdo oo cilmiga ay baratay soo gudbiso waxa imaanaya waxay tahay in la baraarugo teknolojiyadda lagu baraarugo dadka Soomaaliyeed ee shirkadaha isfiiriyaan oo runtii heer la gaaro shirkadaha isgaarsiinta ama teknolojiyadda dalka iyo dawladda in la mideeyo maadaama hadda private ay yihiin in laga dhigo private public partnership oo runtii ay dawladda hoos tagaan oo ay dawladda maamusho oo xeerar iyo nidaamyo u dejiso ayaa la diidan yahay runtii marka idin sheego shirkadaha ayaana ka dambeeya arrintaas aniga hadda shirkad hebel ka dambayso iyo shirkad hebel ka dambayso ma dhahayo magac shirkadna ma sheegin mana sheegayo laakiin waxa idin sheegaa shirkadaha ayaa diidan horumarka dhanka teknolojiyadda in maaragtay muxuu ahaay wax ayay ka baxsan kaliya in maaragtay muxuu la soo bandhiga ma ogolo haday noqon lahayd wareysi haday noqon lahayd cid aqoon u leh teknolojiyadda oo dalka timaado maalgashi ku samaysato ma ogolo taas marka waxay keenay inay isticmaalaan wax kasta ama wada kasta ay ku joojin karaan marmarsiyo kasta isticmaalaan taasaa keenta marka Cabdi Jaliil showgiisa in lagu khasbo inuu joojiyo ayadoo marmarsiyo looga dhigtay meel fududna laga abaaray ilaa gabadha jirkeeda qaawan dhar ma wadato gabadhu waxa way cawradeedii banaanka taal qof noocaan lama wareysan karo dhaqan iyo diin ma lahan fiiri ee loo cuskada dhaqan iyo diin wax ka jira ma lahan Soomaali wax ka munaafaqad badan haweeraati ma jirto dhamaantood ayagoo qaqaawan xumaan nooc kasta sameeynayo har iyo habeen xumaan ku dhex jiro ayay been sheegaan wax ka jira marka Soomaaliya yaa la mar habaabin yaa la idin sheegin diin iyo dhaqan yaa idin ka soo marin gabadhaas waa gabar Soomaaliyeed waa gabar muslimada waa gabar wanaagsan dhar noocay rabtay xiriir xaq u leeyahay xor u ah waxay rabtay inay xirto say rabtay u dhaqme xoray u tahay maxaa yeelay wixii diin iyo ku saabsan ayada iyo ilaaheeda wax shaqo ah ku leedahay iyo wax ka sheegi kartaa weerartay ma jirto marka in lagu mashquulo dharkeeda iyo jirkeeda ma ahane wax ka jir ma lahan taas cidda ku tiri gabadha dharkeeda iyo maaragtay qaab labiskeeda ayaa wareysiga loo joojiyay wax ka jir ma lahan barnaamijkan waxa ka dambeeyo shirkadaha ka dambeeyo shirkadahana waxay diidan yihiin horumarka teknolojiyadda ee la soo bandhigayo mana ogolo dalkan teknolojiyadka horumarka inuu gaaro technological development ayaga aysan mas'uul ka ahayn ama aysan wadin cidii aqoon teknolojiyad soo bandhigayso ama ha noqoto cyber security ha noqoto ammaanka internetka xogaha la jabsanayo sida looga hortago difaaca aqoonta loo baahan yahay sida Soomaaliya ay horumar karto dhanka teknolojiyadda waxyaabo loo baahan yahay applicationada soo baxay waxa socdo horumarkaas oo dhan soo bandhigideeda diidan shirkadaha mana ogolo waxay rabaan kaliya in ay macaashaan tujaaraan hanti arursadaan gudad dhistaan cidda looga dambeeyo ay noqdaan taas waxa kugu filan daliil
markasta wasiir isgaarsiin iyo boosto wasiir tiknoolajiyad markasta dalkan ka hormari kara ama shuruuc siyaasadeed horumar u leh dalkan keenaya ma jiro mana dhaqaaqi karo maxaa yeelay markastoo yimaado marka la magacaabo xafiiska loogu tagaa cash ayaa gacanta loo gashaa malaayiin doolar la yiraahdo qaado waxaa la siiyaa maaragtay muxuu ahay waxa lagu rabo waxaa la yiraahdaa ka dhaxbax arrimaha tiknoolajiyada faraha la gelin dhinac ka istaag taas marka waxay keentaa dalkii in maaragtay muxuu ahay dadka aqoonta u lahayd tiknoolajiyada Soomaaliyeed wax bartay dalka dibadda joogay aqoontii gudbi lahaayeen oo dadka Soomaaliyeed gaarsiin lahaayeen oo faa'iido lahaayeen inay halkaas ku xiranto oo runtii jidgooyin loo dhigto oo ay dhaqaaqi weyso marka aadan ugu xumaa runtii waa nasiib darro inteeda leeg war waxaad arkaydeen dowladda Soomaaliya fiiri application ay sameysay oo la yiri maaragtay muxuu ahay fiisaha nidaamka fiisaha dalkan ayaa loo sameynaa in la jabsado ogtihiin dadka noocaas ah aqoonta u lahaay arrimahaas dowladda maaragtay ka difaaci lahaay maaragtay hackeriska bari lahaay dadka maaragtay muxuu amaanka internetka maaragtay application kastoo soo kordho iyo update kastoo dhaco iyo maaragtay muxuu technology ilaa waxay ku socotaa si swift oo xawaaraha ku socotaa update ka socdo isbedelada socdo maaragtay daily base dhacayo dadka la wadaagi lahaay dowladda la tali lahaay shacabka Soomaaliyeed dhanka tiknoolajiyada ka dhigi lahaay dal ama dowladdan ama Soomaaliya guud ahaan dal dhanka tiknoolajiyada meeshii ugu sareysay gaaray oo maaragtay muxuu ahay qataraha dhanka tiknoolajiyada ka difaaci lahaay xooji lahaay maaragtay muxuu ahay dhisi lahaay maaragtay waxa wacyigelin iyo aqoon iyo khibrad laga faa'iidi lahaay shirkado waaweyn oo maaragtay caloosha u shaqaystayaal oo danaystayaal oo manaxayaal oo dalkan iyo dadkan aan u nixin aan ogoleen horumarka tiknoolajiyad ayaa waxay ka dhayaa isbaaro u dhigtay ayagana aan u afduubanahay mana ogola inaan maaragtay maxay horumarka tiknoolajiyada aan gaarno ama talaabsano ama dhaqaaqno taas marka waxay keentay in dadka aqoonta u leh arrimaha tiknoolajiyada horumarka u leh maaragtay maxay horumarka ka sameeyay way aragnimada doorsan u leh dalka ay dadka u faa'iideyn karo Soomaaliya maaragtay maxay u sameeyay kar application waaweyn oo runtii amniga qaranka lagu sugo xogta amniga lagu sugo muwaadiniinta xogtooda lagu kaydiyo booliiska iyo maaragtay muxuu ahay hay'adaha amniga maaragtay application fiican u sameeyo xogta lagu kaydiyo oo maaragtay muxuu ahay qaranka sumcadiisa iyo xogta qarankan hormariyo ilaa waxa uu nahay wasaaradda arrimaha dibadda sarfarkeeda inuu dibadda yaalo fiiri sarfarka waxa la dhigi lahaa Soomaaliya amniga xogta arrimaha dibadda la ilaalin lahaa heshiisyada la galayo kuwa difaaca kuwa diblomaasiyadda waxa soo dadkii saldhig u ahay aqoonta u lahay hormari lahay ayaa la hor istaagay ayaa la diidan yahay waxaan hor istaagay waa shirkado markii la idin sheegay wax ka jira ma laha dhar laguma diidin labisna laguma diidin diin iyo dhaqan sal kuma laha waxay sal ku leedahay aqoonta gabadhaas ay baratay ayaa la diidan yahay inay soo gudbiso gabar wax baratay la diidan yahay horumarka loo diidan yahay gabdhaha waxaana ka dambeeyo waxaan kaloo la diidan yahay aqoonta ay gudbinayaan la diidan yahay inay gudbiso oo blog maaragtay la boolgareena hol jidgooyo loo dhigana maxay waxa la diidan yahay wax horumarka ay ka sheekeynay iyo sida ay u bedeli karto qarankan iyo fursadaha u imaanaya warkaalay dowladnimadaadii iyo dadkaadii badbaadi oo maaragtay waxa aqoontaadii u faa'iiday oo qarankaadii u sameeyay applicationo lagu soo xogta guud ee wadanka waxaas diidan yihiin shirkadaha ka dambeeyo ayaga diidan ayaga hor istaagay waxayna sal iyo raad ka dhigteen oo base ka dhigteen diin iyo maaragtay dhaqan iyo labis wax ka jirna ma laha inay idin sheegaan waa nasiib darro jirto waaye oo dalkan inuu dad u afduubnaado oo shirkado u afduubnaado oo ganacsato manaxayaal u afduubnaado waa nasiib darro waaye nasiib darro inteeda la eg waaye oo aan dadka dalka u naxayn maanta abaar ka jirta magaalada Muqdisho waa aragtay Soomaaliya abaarta jirto ayuu u gurmana ma aragtay waa may horumarka dalka iyo dadka ku socdo iyo dadka aqoonta leh soo gudbinaya aqoontooda ma ogolo oo wixii marmasi u dhiganayaan dhaqan qofkan ma wanaagsano diin ma lahan hablabiskiisa fiiri si u labisantaa arag waxaas wax ka jira ma laha waa ana idin sheegay asxaabay radii janaalka ku cusubtiin subscribe saar hadaa saarteen ku mahadsantiin wixii tala tusaale haysaan qaybta comment ku soo qora aadan ugu xumahay fariinta u dambaysa Cabdi Jaliil aan u diray waxay tahay Cabdi Jaliilow walaalow gabadhaas wareysi aad ka qaadi rabtay cidna ha u heshoon cidna ha u heebeysan soo bandhig muxuu ahay soo gudbi aqoonta iyo khibradda iyo aragnimada ay dadka Soomaaliya u soo gudbinayso ee la wadaagayso iyo faa'iidada laga helayo ayaa ka badan hablabiska ay dadka ku tilmaamayaan wax ka jira ma laha gabadha ayada xor u ah si u labisay si u taal ayada xor u ah labiskay doorta ayada xor u ah wax shaqo iyo shuqulan kuleenaha male adiga xataa shaqo ku milid soo bandhig kaliya waxa waajib ka saaran aqoonta iyo khibradda ay u leedahay tiknoolajiyada iyo sida ay rabto dadka inay uga faa'iideyso u soo bandhig walaalow si aan uga kororsano oo maaragtay muxuu ahay aqoonta iyo khibradda aan uga wala baxno oo dadka Soomaaliya uga faa'iideystaan
khibradda iyo aqoonta ay leedahay intaasaa muhiim ah intaas soo bandhig intaas waajib kaa saaran cidna ha uga heebeysan cidna ha uga baqin ku celi wareysiga soo bandhig wareysiga hadda waad joojisay ha joojin qaad wareysiga soona gudbi dadka Soomaali usoo gudbi aqoontaas ay gabadhaas leedahay si looga faa'iideysto intaas aniga aan ku leeyahay Cabdijaliilow aad iyo aad u mahadsantiin asxaabay khayr axmed rajayna Ramadaan Kariim bye bye